waxaa jiri jiray gabar yar oo lagu magacaabi jiray Khadiijo waxayna ku nooleed degmada Afgooye. Khadiijo oo labadeeda gacan ku haysta 2 xabo oo isbaandheys ah ayaa soo gashay qol ay fadhiyeen labadeeda waalid. Hooyadeeda ayaa cod dabacsan ku tiri, Khadiijo, labadan isbaandheys mid ka mid ah ma isiin kartaa? Gabadhii ayaa eegtay hooyadeeda kadibna intay ilkaha ku qabatay hal isbaandheys dhinaca ka goosatay, haddana si dhaqso ah ayay kii labaad ilkaha ku goosatay. Hooyadeeda ayaa wajigeeda laga dareemayay in dhoola-cadeyntii ay dib ugu noqotay maadaama ay ka yara xumaatay. Aabbaheed oo eegaya ayaa la soo booday, Aabbe waa ceeb sidaa, haddii ay hooyo wax ku weydiisato waa la siiyaa. Gabadh yareed oo labadii isbaandheys midba wax yar ka cuntay ayaa hooyadeed intay ku soo dhawaatay ku tiri hooyo, kan ayaa macaan. Qof kastoo aad tahay, way aragnimo kastoo aad leedahay, si kastoo aad isugu haysato inaad cilmi leedahay, marnaba ha ku degdegin ficil yar oo qof sameeyey in aad durbadiiba faalo ciladaysan ka bixiso. Qofna ha xukumin, isla markaana go'aan ha ka gaarin.